asalaamu calaykum waa mar kale iyo cashiradeenii website-ka wax ka bara.net waxaan filayaa cashirkan inaad si fiican uga faa'iideysan doontid haddii aad doonayso koorsadan oo dhammaystiran waxaad soo dejisan kartaa applicationka wax ka bara.net kadibna waad iska soo diiwaangeli kartaa koorsada wixii su-aala ama wixii aad fahmi weyso ama wixii tale ay noo haasid mar walba bini'aadanka ciladii kama dhamaato qaybta commentiga hoose ayaa inoogu soo reebi kartaa shareta iyo like-tana waa dhankiina hadduu ilaahay ka raali noqdo website-ka wax ka bara.net mar walba wuxuu u taagan yahay inuu idinka idin adeego marka idin kala baxo adinka iyo ustaadka si aad cashirka uga faa'iideysataan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Koorsadeeni Englishka ayaa inoo socoto website-ka wax ka bara.net waa cashirkii 11aad telling about your time. Magaciiguna waa Maxamuud Axmed Xaaji. marka haddii aad buugga haysatid waa kaasaa cashirkii 11aad ayaa soo furanaysaa haddii aadan haysaninna ha ka walwanin videoga hoostiisa ayaan buugga kuu soo geliyey sida caadiga noo ahay marka cashirkan maanta wuxuu ku saabsan yahay waqti sheegidda waa cashir yar oo iska fudud oo iska kooban oo aad u kooban hadduu ilaahay ka raali noqdo marka bilaawno marka there are two ways of saying time in English. There are two ways of saying time in English. Waxaa jiro laba qaab oo loo dhaho ama loo sheego waqtiga oo marka Englishka la joogo. You can use hours and minutes. Okay. Horta mar walba waxaadan iloobin inaad marka jumlad dhameyso inaad dhibic geliso. Okay, dhibic u tamariso. You can use hours and minutes. waxaad isticmaali kartaa inaad saacadii iyo daqiiqadihii israaciso hal mar isla aad sheegto or ama you can say minutes first and state their relation to the hours ama waxaad awoodaa inaad marka hore daqiiqadaha aad sheegto kadibna aad raaciso xaaladda ay la wadaagaan ama daqiiqadaha waxa ay ka yihiin xaaladooda markii loo barbar dhigo hourska ama haddii si kale aan u dhigo meeqa daqiiqo ayaa raacday ama meeqa daqiiqo ayaa saacadii dhiman ayaan ula jeedaa use the verb to be marka waan baranay verb to be mar walba inaad isticmaashaa when giving or asking the time in English markaad waqtiga sheegayso ama waqtiga aad weydiinayso waa inaad isticmaashaa verb to be maxaan dhahnay waxaa ka mid ah it is ayaa verb to be ka mid ah ama he is ayaa ka mid ah ama she is waa is ayaa verb to be marka is ayaa verb to be marka waxaan rajaynayaa inaad marka hadalkan fahanteen marka waxaan there are two ways of saying time in English laba nooc ayaa jiro waqtiga loo dhihi karo marka luqadda Englishka lagu hadlayo you can use hours and minutes waqtiga timeka saacadda iyo waxaad israaci kartaa daqiiqadaha si aad markaas u dhahdo example way noo soo socdaan marka ka walwalin ama you can say minutes marka hore daqiiqadaha ayaad sheegaysaa kadibna xiriirka saacadaha kala dhaxeeyo daqiiqadaha xiriirka saacadda kala dhaxeeyo ayaad raacinaysaa marka hore daqiiqada ayaad sheegaysaa kadibna xiriirka kala dhaxeeyo ayaad raacinaysaa ma 5 daqiiqo dhaaftay ama 5 daqiiqo ayaa dhiman camal ayaa loo jeedaa mar walbana waxaad isticmaalaysaa verb to be ayaa isticmaalaysaa when giving or asking time markaad waqti weydiinayso ama waqti aad sheegayso dhinacan kale haddaan u soo jeesano tusaalaha qofka markuu ku dhahayo kale ama markaa rabta adigina dhahdid waxaa leedahay what time is it waa saacad waqtigu waa meeqo ama waqtiga ii sheeg ama waxaad dhihi kartaa what is the time waa dhihi kartaa labada wado way ku banaan tahay marka waxaan dhahnay when use verb to be when giving time ama when asking time markaad weydiinayso waxaan dhahnay use verb to be hadda marka meesha maxay noo muuqato what is aan dhahnay soo maaha is marka maxaan dhahnay waa verb to be maxaan dhahnay intane what is ayaan dhahnay what is the time okay waqtiga ayaan weydiinoonaa marka waxaan isticmaalaynaa verb to be labada jumlo isticmaali kartaa what time is it or what is the time ama waqtigu waa ama meeqa saac haddii af Soomaali la fududeeyo waa meeqa saac okay marka maxaan dhahnay marka use the verb to be when giving marka adigan waqtiga sheegaysid waxaad isticmaalaysaa nuu dhahnay verb to be inta marka maxaa ku qoran it is 5 waa 5 okay ayadoo la soo gaabiyey
it's 5 o'clock waa shantii marka meeshan waxaan dhahnay you can use times and minutes laba nooc ayaa jiro marka noocna waa dhinacaan noocna waa dhinacaan marka waqtiga kaligiisa ay sheegayso hadda saacada ugu horeyso kale marka saacadii shantii go ay tahay oo kale waxaa leedahay it is 5 ayaa dhihi kartaa ama waxaa dhehaysaa it's 5 o'clock ayaa dhihi kartaa marka verb to be waa kana waa contracted form asigoo la soo gaabiyay waxa laga soo gaabiyay it is ayaa laga soo gaabiyay it's 5 o'clock okay taas waa fahanteena rajeynaya haddii daqiiqado la socdo ka war hadda waa waqti cayiman ayuu ahay oo shantii oo go ayuu ahay marka daqiiqado la socda maxaa leedahay it is 5:15 marka waxaan dhahnaa meeshan use hours and minutes hal mar aad la isticmaalaysa it's 5 waa shantii iyo 15 daqiiqo 5:15 waa shantii iyo 15 daqiiqo marka rulkan hore waa kaasa waa ujeeda waa isticmaalnay ama waxaad dhihi kartaa markaa rabto inaad rulkan hoose rabto inaad isticmaashid it's a quarter past 5 ayaad dhihi kartaa it's a quarter marka waa rubac waaye rubac marka waa 15 daqiiqo ama rubi ayaa la dhahnaa marka waa it's a quarter past 5 waa shantii oo dhaaftay 15 daqiiqo past waa dhaafid waaye waa dhaaftay marka waa shantii oo dhaaftay 15 daqiiqo shantii oo dhaaftay 15 daqiiqo ama 15 daqiiqo oo shantii dhaaftay sidaa jeceshahay buu dheh marka inta waxaan ku dhahnay saying minutes first marka hore daqiiqadihii ayaa sheegaysaa marka hadda daqiiqadihii waan sheegnay waad u jeedaa quarter ayaan dhahnay waa quarter waa 15 daqiiqo marka kadib waxaan dhahnay relation to their and state their relation to the hours kadibna farq xiriirka ka dhaxeeyo saacada sheeg marka xiriirka ka dhaxeeyo maxaa waa ay dhaafta waa past 5 shantii waa 15 waa shantii oo 15 daqiiqo dhaaftay okay haddii ay dhiman tahay ka waran ama ay tahay shantii 45 daqiiqo waxaad dhihi kartaa marka waxaan waa idin kala qaada waqtiyo kala duwan waaye saas xiriirka si aad u kala dareentaan markaana waxaad dhihi kartaa it is 5:45 it's 5:45 waa shantii iyo 45 waa shantii iyo 45 waa markaad israacinayso daqiiqadaha saacada iyo daqiiqadaha markaad israacinayso haddii aad sharciga hoose aad isticmaalaysid waxaa leedahay it's a quarter to 6 ayaa leedahay marka it's a quarter to 6 marka ujeedaa waxa waaye waa lixdii oo dhiman 15 daqiiqo marka saacadu 60 daqiiqo markay gaarto ayay waxay noqotaa saacad dhameystiran noqotaa 45 markay marayso marka 60 waxaa ka dhiman 15 ayaa ka dhiman marka waxa waaye waa 15kii oo la lixdii oo la 15 marka waxaan rajeynayaa inaad fahanteen marka hadda diyaar uma ihi ama mataqaana cashirka kuma saabsano waqtiga sida u shaqeeyo ama saacada sida u shaqeyso inaad barataan kuma saabsano cashirka laakiin sidaad u sheegi lahayd ayuu ku saabsan yahay haddii aadan aqoonin saacada si loo sheego ama saacadu markaad fiiri sidoo kale marka saacadii aragtidoo kale saacadan wareegeeda markaa aragtidoo kale haddii aadan aqoonin sida loo sheego markaasi meel gooni ayaad ka raadinaysaa barashadeeda cashirka kuma saabsano saacad in lagu baro marka taas waa isla fahanay rajeynaya laakiin sheegidda waa fahanay haddii waqtiga go'an yahay it's 5 waa ku ekeysan kartaa ama waxaad dhihi kartaa 5 o'clock ayaa dhihi kartaa haddii uu waqtigu wax dheer yahay saacadii iyo waqti ay tahay saacadii iyo ilaa laga gaarayo maxaa la dhahay saacadu hadda daqiiqada la socdaa waxaa leedahay 5:15 5:23 5:26 5:30 5:45 saas ayaa leedahay haddii aad rabtid markaad isticmaalaysid sharciga hore ee hours iyo minuteska isticmaalaysid haddii aad nidaamka caadiga ah ee mataqaanaa nidaamka kale oo sharciga labaad ee ah inaad waqtiga xiriirka ka dhaxeeyo aad sheegtid waad dhihi kartaa it's 5 waa 15kii oo dhaaftay waa shantii oo 15 dhaaftay it is 5:45 ama waxaad dhihi kartaa it's a quarter to 6 ama waa 15kii waa lixdii oo la 15 aniga sharcigan hoose ma isticmaalo sharcigan kore ayaan isticmaalaa aadna u aqaana iyana fudud adiga labada sharciga kuu fudud ayaad isticmaali kartaa ani kan ayaa ii fududaaday 5:15 5:45 5:56 5:57 taas ayaa ii fududaatay adigana midii kuu fudud waad isticmaali kartaa hadduu ilaahay ka raali noqdo okay
marka halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa waxaan rabaa marka exercise yar ayaa casharadan la socdo adiga ugu yaraan 1 2 3 4 cashar ayaa la socdo afartaas cashar ma ahan exercise ayaan la jeedaa 4 exercise ayaa la socdo kadibna waan soo gabagabeynaya marka afartan exercise numberadooda ayaan idiin qorayaa kadibna xogaan example yar ayaan ka shaqeynayaa kadibna waxaan u gudbeynaa hadduu ilaahay ka raali noqdo cashirka xigo insha Allah. Okay, marka waxaan rabaa intaan exercise ka u gudbin vocabulary yar days of the time waxaa jira wax la dhaho midnight. Midnight iyo waxaa kaloo jiro wax la dhaho midday. waxaa kaloo jiro ayadane waa intaas oo inta badan waxa waaye waxa kale waa waqti caadi un baa sheegaysaa. Midnight waa saq dhexe habeenkii waxa waaye 12 habeenimo waa saq dhexe ama 6 saac oo habeenimo dadka reer koonfurka ah. Middayna waxa waaye ama midday ama waxa dhihi kartaa noon ayaa dhihi kartaa noon. marka dad qaar ayaa dhaho midday ama noon marka noon ayaa ka haboon sababta midday u qoran waan la yaabanahay laakiin noon ayaa ka haboon. noon waa ayadana 12kii duhurnimo waa markay qoraxda dhakada saaran tahay ayaa noon la dhahaa. Okay, habeenkii marka midnight waa saddex 6 saac habeenimo ama 12 habeenimo markay saacadu isbedelayso intana waa noon markay saacadu kala barka taagan tahay 12 dhinacana jirto intana 12 dhinacana jirto. marka waxaan ognahay waqtigu inuu 24 yahay 12ka hore waxaan dhahnaa am 12ka dambena waxaan dhahnaa pm. marka hore waa am waay laga soo bilaabo midnight laga soo bilaabo ilaa lagu tago noon waxa waaye am ayaan dhahnaa laga soo bilaabo noon ilaa lagu imaado midnight lagu imaadana markii si fiican u sharxo meeshaan. midnight laga soo bilaabo ilaa lagu imaado duhurkii noon lagu imaado waxa waaye am ayaan dhahnaa waa 12 habeenimo ilaa 12 duhurnimo laga gaarayo am ayaa loo yaqaanaa. noon markii laga soo bilaabo duhurkii markii laga bilaabo ilaa lagu tagayo habeenkii midnight lagu tagayo ayadana waxa u naqaanaa pm ayaa la dhahaa saacadu marka pm ayaa la dhahaa. marka dadku aad bay isugu kahaan dad badan ayaa isku kaho anigana waa isku kahi jira laakiin markii dambe waa ay fududaatay. duhurkii wixii ka dambeeyo ilaa habeenkii saqdhex laga gaarayo waa pm saqdhexe wixii ka soo bilowday ilaa duhurkii laga soo gaarayana waa am. marka haddii lagu qoro kale 11 am lagu qoro kale waxa waaye waa 12kii subaxnimo. haddii lagu dhaho 11 pm waa 12kii habeenimo. marka 12kii subaxnimo reer koonfur waxa u naqaanaa 5tii subaxnimo ayaa u naqaanaa 5tii subaxnimo ama 5 saac intana 5 saac habeenimo ayaa u naqaanaa. marka laakiin nidaamka saxda ah nidaamkana waa sax waaye oo ma aqaan Talyaaniga ma laga keenay waa fahmi waaye laakiin nidaamka oo standardka Englishka oo isticmaalo waa sidaan waaye waa 12kii subaxnimo iyo 12kii galabnimo. marka exercise-ka ayaan u gudbeynaa kadibna waxaan leenahay we call it a day. Okay, we call it a day. hadda ka horna waa idin sharxaya idin dhaha waa ilooba hadda ayaan idin sharxaya. We call it a day waa phrase waaye eray mataqaanaa halku dhig ama mataqaanaa sarbeeb camal loo isticmaalo oo loogu talagalay camal waan soo gabagabeynayaa ama wixii waan gabagabeynayaa ama maasha Allah waa maalin nagu filan ayaan. we call it a day marka sheekada dhameynaysid ayaa la dhahaa let's call it a day meeshan ku joojina camal waaye ama we call it a day ama let's call it a day. let's call it a day aan soo gabagabeyna waaye ama aan ku kala yaacno ama aan ku kala tagno.
marka waa fahanteen aan rajeynayaa cashir exercise ugu horeeyo waa cashirka exercise ka 11aad ee 11.8 oo ka hadlayo wuxuu ka hadlayaa saacad ayuu ku sawirayaa saacadaas ayuu ku leeyahay ku aadi waqtiga ay tahay haddii marka saacadaha si loo sheego aqoonin exercise kan kama shaqeyn karaysid marka waa inaad barataa saacadaha si loo shaqeeyo saan qiyaasayo dadka intiina ugu badan saacaduhu sida loo sheego waad garanaysaan okay taas waa fahanteen aan rajeynayaa waxaa kaloo ayadana kasoo shaqeynaysaan exercise 11.4 isagan wuxuu ku leeyahay abka soo furo dhageyso markaad dhageysatid kadibna number walbo saacadda aad maqashay sheeg waa abka dhageysanaysaa qofka marka hadlayo labadan saacad too sheegay ma tan buu sheegay mise tan buu sheegay marka inaad dhageysatid oo fahantid ayaa laga rabaa mid oo sheegay aad soo xulatid marka taasna waa fahanteen aan rajeynayaa waana sharxayaa marka quiz-ka soo gelinaya sharxaad dheeraad ayaa kasii bixinaya waxaa kaloo ayadana kasoo shaqeysaan 11.5 asagana waxay ku saabsan tahay write the times in figures saacadihii ayaa waxaa lagu siiyey ayagoo qoraal ah lagu siiyey ayadoo number ah qor ayaa laga rabaa marka ayadoo number ah inaad qortid ayaa laga doonayaa waxaa kaloo ayadana kasoo shaqeynaysaa 11.6 ayaa kasoo shaqeynaysaa oo ku saabsan write waxay ku saabsan tahay marka ayada write down maxay ku leedahay write down the times and then say them loud waqtiga aad aragtid waqtigan kuu muuqdo oo meeshan kaaga muuqdo waxaad u qortaa asoo qoraale hortiisa ku qor kadibna dhawaqiisa adoo dhehaysidna soo duub marka shaacadii qor tusaale ahaan oo kale waxaa lagu dhahay oo kale 9 waxaa lagu siiyo kale 9:15 oo kale lagu siiyo marka waa inaad qortid marka ayadoo shaqa oo qoraal ah 9:15 inaad dhahdid 15 saasina u qortid 15 marka waxaa leedahay it is 9:15 ayaa leedahay kadibna waad ku dhawaaqaysaa adoo ku dhawaaqaysa ayaa soo duubeysaa marka afartan exercise waa idinku filan yahay qiyaasaya 11.3 11.4 11.5 11.6 halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu